السلام عليكم سلام كبعد داوديال halkaad nagala socotaan waa geeska Africa TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi waxa barnaamijka idin la socodsiinaya anigoo ah Barkhad Maxamed Cumar ku magac dheer Suldaan qodobada idin heynana waxa ay kala yihiin madaxweynaha Galmudug oo eedeyn kulul kula dul dhacay dowladda federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka oo bilaabay soo xulista xildhibaanada cusub ay yeelanayso maamulka Galmudug qarax ka dhacay maalnimadii Arbacada ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan isku sayidka khasaaro ba'an oo halkaasi soo gaaray warbixin ayaan idinkaga haynaa madaxweynaha maamulka Puntland oo ka hadlay halka uu ku dambeeyay kiiskii Caaisha Ilyas Aadam wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa maalnimadii Arbacadii u dirtay urur caafimaad tuulooyinka u dhow gobolkaasi ciidamada dawladda oo howlgallo muhiim ah ka bilaabay gobolka Jubbada Hoose wararka caalamkana waxaa ka mid ah Australia oo leesay 10,000 oo neef oo geela iyo fardaba sababtu maxay tahay waxa ka mid ah wararka caalamka Iran waxa la xaqiijiyay in ay soo riday diyaaradii Ukraine oo ay saarnaayeen 176 qofood wararka kale ee caalamka waxa ka mid ah Iran oo diiday in ay wareejiso sanduuqa madow ee keediya codka diyaaradii burburtay intaas waxay ahaayeen qodobadeena ugu doorka roon ee toddobaadkii tagay haddana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Galmudug oo eedeyn kulul kula dul dhacay dowladda federaalka Soomaaliya maalnimadii Khamiista ay taariikhduna ay ku beegnayd 9 bisha January 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in ay afduubtay sida uu hadalka ku dhigay maamul u sameynta Galmudug Xaaf ayaa ku baaqay odayaasha dhaqanka in ay meel uga soo wada jeestaan sida uu hadalka u qoray qorshaha ay wado dowladda Soomaaliya oo ay ku doonayso in ay ku dhisto maamulka Galmudug hadalka madaxweyne Xaaf ayaa imaanaya xilli guddiga farsamada maamulka Galmudug ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka cusub isla markaana uu meesha ka baxay wixii khilaaf ahaa ee warqadii uu soo saaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa waxay u qorneyd sida dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya waxay mar kale ku celcelinaysaa in la wajahayo xaaladii ugu darneed ugu noqotada dheereed dhibaatooyinka ka dhashay maareyn xumada hanaankii doorashooyinka inkasta oo si isdaba joog ah aynu u ifinaynay ficilada iyo faragelinta qaawan ee hoggaanka talada u haya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qorshahooda siyaasadeed ku helinayaan tiro sanitaro iyo xildhibaano kooban ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo hadafkoodu yahay carqaladeynta horumarka maamulka iyo in la wiiqo habka nidaamka federaalka Soomaaliya lana abuuro khilaaf iyo aaminaad darro ka dhex jirta bulshada iyo shacabka dowlad goboleedka Galmudug si musharaxiintoodu u boobaan doorashooyinka soo socda
intaas waxaa dheer go-aankii hogaanka dowladda federaalk soomaaliya ay dhuusamareeb ku geeyeen ciidamo fara badan ee ka socday laamaha amniga iyadoo laga warqabin mana lagala tashan madaxda dowlad goboleedka galmudug, taas oo ahayd mid cabsigelin iyo cadaalad darro ah ee si toosa uga hor imaaneyso qodobka 120aad iyo qodobka 142 ee dastuurka dowladda federaalk soomaaliya, kuwaas oo siinayo maamulada dalka awood buuxda ay ku qabsadaan doorasho iyagoo u gaar ah si waafaqsan dastuurkooda. dowlad goboleedka galmudug waxay halkan ku cadeyneysaa in madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf difaacayo sharciga iyo danaha shacabka. wuxuu kasoo horjeedaa ficilada foosha xun iyo kuwa haatan ay hogaaminayso dowladda federaalk soomaaliya oo si cad khatar ugu ah nabadda, wada noolaanshaha bulshada deegaanka iyo guulaha siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee la gaaray sanadihii lasoo dhaafay. ujeedada siyaasadeed ee hogaanka dowladda federaalk soomaaliya oo ah kala dirista iyo iska hor imaadka waxay abuurtay xiisado aan loo baahnayn iyo isku dhacyo hubeysan. waxa kale oo intaas ku daray Axmed Ducaale Geele Xaaf, waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan odayaasha dhaqanka ee caawa la faray in ay soo xulaan xildhibaanada gacan ku rimiska ah. waxaan ugu baaqayaa in ay xaaladda hadda jirta ee galmudug aysan uga sii darin, maadaama ay xukuumaddii dalka mas-uulka ka ahayd ay ka shaqeynayso inay cawda u jarto duntii tabarta yareed ee isku haysay beelaha galmudug, taas oo keeni karta in beel walbana danaheeda raacato mar haddii masiirkii iyo rabitaankii shacabka la rabay in la isku keeno boob, dhac iyo cagajugleen lagu maareynayo. odayaasha dhaqanka oo bilaabay soo xulista xildhibaanada cusub ay yeelanayso maamulka galmudug. maalinnimadii khamiistayda oo ay taariikhdu ku beegneed 9 bisha January 2020 odayaasha dhaqanka galmudug ayaa bilaabay soo xulista xildhibaano ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug kadib markii tababar ku saabsan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada loogu soo gabagabeeyay magaalada dhuusamareeb. gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta galmudug ayaa ku booriyay odayaasha in ay ku soo xulaan xildhibaanada aqoontooda, isagoo intaasi ku daray in la abaalmarin doono 3 bilood ee ugu horeysa soo xulista xildhibaano aqoon-yahano ah. marka laga reebo ahlu sunna oo soo gudbisay xildhibaanadeeda, waxaa odayaasha looga fadhiyaa in ay soo xulaan xildhibaanada kale iyagoo ku jaangoonaya habka awood qaybsiga ee beelaha daga galmudug. qarax ka dhacay maalinnimadii arbacada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya, gaar ahaan isgoyska sayidka. umaraan waxaa geeriyooday 5 qof halka ay dhaawac yihiin 6 qofood oo kale kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lala beegsaday isgoyska sayidka ee caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho. shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gurmadka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ka sii badan karaan tirada hadda la ogyahay. waxaa sidoo kale la xaqiijiyay dadka geeriyooday in ay ku jiraan in ay gudaha u galaan isla markaana ay rabeen inay ka gudbaan bartan lagu baaro gaadiidka. goobtan ayaa ahayd meel ay ilaalada madaxtooyada ay ku hubiyaan gaadiidka raba inuu u soo gudbo dhanka madaxtooyada. ilaa iyo 5 gaadiid oo nooca raaxada ah ayaana goobtan ku gubatay, kuwaas oo sugayay inay ciidamadu hubiyaan kahor inta aysan ka gudbin bartan lagu baaro gaadiidka. qaraxan ayaa sidoo kale waxa uu saameeyay dad shacab ah oo marayay wadadan, waxaana sidoo kale goobta ku gubtay ugu yaraan 2 gaadiid oo ah mootobajaaj ayaa u diiday gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance in ay tirada rasmiga ah ay wax ka soo gaartay qaraxan ila wadaagto saxaafadda. waxaa sidoo kale warbaahinta loo diiday in ay gudaha. madaxweynaha maamulka Puntland oo ka hadlay halka uu ku dambeeyay kiiskii Caaisha Ilyas Aadan. maalinnimadii khamiista ee taariikhduna ay ku beegneed 9 bisha January 2020 madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay halka uu ku dambeeyay kiiskii kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay Caaisha Ilyas Aadan, iyadoo raggii falkaas ka dambeeyay aan weli cadaalad la marsiin. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in kiiskaasi fulintiisa uu horyaalo maxkamadda sare ee Puntland, isagoo iska fogeeyay in uu kiiskaas u xayiran yahay amarkiisa. waxaa madaxweynuhu cadeeyay inuu waxba iska bedelin sidii kiiskaasi uu ku socdo uuna marayo wadadii cadaaladda ay ku heli lahayd dhibane Caaisha Ilyas Aadan. maxkamadaha madaniga ah go'aanada ay qaadaan fulintiisa waxaa iskale maxkamadda sare, annaguna xukuumad ahaan ma faragashan karno kiiskaas, ayuu yidhi madaxweyne Dani. hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii warbaahinta su'aalo ka weydiisay sababta maamulka u fulin layahay xukunkii lagu riday 3 nin oo ay maxkamaddu ku cadeysay inay ka dambeeyeen kufsiga iyo dilkii Caaisha Ilyas Aadan. xukunkii ugu dambeeyay ee lagu riday dambiilayaasha falkaas geysta ayaa dhacay 5 bilood ka hor, welina lama fulin.
kiiskani waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo horaantii sanadkii tagay. wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa maalnimadii Arbacadii u dirtay urur caafimaad tuulooyinka u dhow gobolkaasi. warkaasi waxaa noo haya wariyaheenna Muna Maandeeq. wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool oo kaashanaysa hay'adda NRC iyo sidoo kale Save Children ayaa saaka 3 tiim oo caafimaad u diray degmooyinka kala Xudun, Saaxdheer, Dhakayn oo dhawaanahan ay ka jireen xaalado caafimaad darro. 3 tiim ayaa waxaa hogaaminaya isuduwaha wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamuud Xaaji Khaliif isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay inay xilligan u baxaan tuulooyinka iyo degmooyinka iyagoo ka geysanaya gargaar caafimaad. horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool horteeda halkaasoo wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool tiim uu hogaaminayo iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khaliif loo kala diri doono response ay ugu geysan lahaayeen xaalad caafimaad darro ee kasoo ka dilaacday meelaha qaar ee gobolka Sool. tiimankaasoo ka shaqayn doona baayaha ka jira deegaankaasi. runtii waxaan u mahadcelinaynaa hay'adaha ka qayb qaadan doona ama goobaha ka midka gobolka Sool ee arrimaha caafimaad darradu la soo dirseen ee wasaaradda caafimaadku u diri doonto oo hogaamin doona isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khaliif. anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda ARC International ba dabcan sharaf bay noo tahay inaan ka qayb qaadano arrimaha bini'aadantinimo iyo waliba fidinta adeegga caafimaad ee dadka baahiyaha caafimaadka leh baahiyaha caafimaadka u baahan laga soo sheegay ee meelaha kala duwan ee gobolka kamid ah. waxaan kaga qayb qaadan doonaa insha Allah hadday tahay dhanka logistiga iyo hadday tahay dhanka daawadaba. waxaan kaga qayb qaadanay daawooyin dhameystiran insha Allah oo essential ah waan ku wareejinay wasaaradda horumarinta caafimaadka. sidoo kale waxaan kaga qayb qaadan doonaa 2 tiim oo uu hogaaminayo medical doctor-ka hay'adda ARC sheegay deegaanadaas anoo ku hadlaya magaca hay'adda Save Children. runtii waxaanu aad iyo aad noo dhibtay dhibaatada halka laga soo sheegay intii taalkayga inaan ka qayb qaadano tiimka caafimaadka ee hay'adda Save Children ayaa isaguna halkan jooga iyo ARC runtii oo kale oo inay si degdeg ah uga jawaabaan arrimaha laga soo sheegay deegaanka oo inay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool. runtii waxaan rajaynaynaa inay tiimkaasi in badan halka ku nagaa doonaan oo ay ka soo qayb qaadan doonaan dhibaatada halka ka jirta. horeyna deegaanada uga shaqeynayeen dhul fara badan oo deegaan kamid ah hay'adda Save Children way ka shaqeysaa hadeer wax badanna way ka qabatay. waxaan rajaynaynaa wax qabadkeega inaan sii kordhino iyo shaqaalaha ARC iyo shaqaalaha Save iyo tiimka uu hogaaminayo isuduwaha wasaaradda caafimaadka. waxaan naga go'an inaan u adeegno deegaankayaga si hufan. tiimamkana hal mid ayaan waxaan leeyahay si aan dadkeena ugu shaqeyno aan wax u baranay in aan shaqada si fiican u qabataan si hawlkarnimo u qab. awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaka bisha waa 8 bishii koowaad ee sanadkan cusub ee 2020 waxaynu joognaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool. halkan waxaa hareerahayga taagan shaqaalihii wasaaradda caafimaadka iyo madaxdii hay'adda ARC International ee gobolka Sool iyo shaqaalihii ay naga sabood gareynayeen. runtii waxaanu saaka u baxaynaa ama aanu saaka gaaraynaa goobaha laga soo sheegayo xaaladaha caafimaad ee gobolka Sool. anoo ku hadlaya afka wasaaradda caafimaadka waxaanu runtii ka jawaabnay oo aanu horey uga jawaabnay baahiyihii caafimaad ee la soo darsay ama xaaladihii caafimaad ee la soo darsay gobolka wiigagii aynu soo dhaafnay. runtii waxaanu tiimam caafimaad gaarsiinay deegaamo kala duwan oo gobolka Sool ah. runtii saakana waxaanu cagahayaga ku tagaynaa goobihii laga soo sheegayay xaaladahan caafimaad. waxaanu tagi doonaa deegaanka degmada Xudun magaalada Saaxdheer iyo Dhakayn iyo deegaamada hoos yimaada. runtii waxaanuna la soo darsaynaa ama aanu soo eegaynaa bal xaaladaha caafimaad inta ay capacity-goodu u leeyahay. waxaanu halka geynaynaa tiimam caafimaad oo ka hawlgala oo ka shaqeeya oo bukaanadaas daweeya iyo sidoo kale tiimam soo sameeya sambal ka soo qaada bal xanuunkani nooca uu yahay. mahadcelin dadka ilaahayna uma mahadceliyo. waxaan rabaa inaan halkan runtii ku xuso hay'adda caalamiga ah ee ARC International oo runtii
adeegan aanu fulinayno ka qaadatay gacan lixaad leh gawaarida aad arkaysaan hareerahayna taagan hay'addu iyada ayaa bixisay runtii tiimamka halkan maraya dhakhaatiirta runtii waxay ka geysatay gacan lixaad leh horeyna uga geysan jirtay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool runtii hay'addu waxay noo tahay priority waxaanu rajaynaynaa hay'adaha la midka ay gobolka ku jiraan inay ku daydaan hay'adda ARC runtii iyaguna waxaan meesha ka marnayn hay'adda Save the Children oo iyaduna ay halkan taagan yihiin tiimkii ay ku xoojinaysay wasaaradda caafimaadka runtii iyagana waxaan leeyahay way mahadsan yihiin sida ay ula wadaagayaan baahiyaha ka jira gobolka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo agaasimaha guud oo runtii iyaguna mar walba u taagan baahiyaha laga soo sheegayo gobolada iyagoo runtii ku taageeraya mar walba awoodooda maskaxdooda iyo maankooda Muna Ahmed Cabdi Muna Mandeeq ciidamada dawladda oo howlgallo muhiim ah ka bilaabay gobolka Jubbada Hoose warkaasna waxaa noo haya waryaheena Hashim Aadan wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka bilaabeen deegaano hoostaga magaalada Kismaayo wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka maalintii shalay howlgal ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabo Yaaq Bishaaro oo hoostaga degmada Kismaayo ku dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab intii uu howlgalka socday ayaa la sheegay inuu dhacay iska horimaad dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab oo markii dambe lagala wareegay fariisimo ay ku sugnaayeen al-shabaab dhimacooda weli kama hadal weerarka ciidamada isgarabsanaya ay sheegeen inay ku qaadeen deegaankooda Yaaq Bishaaro iyo xoogga la sheegay in looga dilay iska horimaadka Australia oo laysay 10,000 oo neef oo geela iyo fardaba sababtu maxay tahay warkaas oo faahfaahsan waxa noo haya wariyaheena Maxamed Khadar in ka badan 100,000 oo geel ah ayaa lagu tooganayaa wadanka Australia gaar ahaan dhinaca koonfureed ee dalkaasi kadib markii ay dadka biyaha ku ereeyeen xilli ay jiraan kulayl daran iyo abaaro baahsan maalinadii Arbacada ahayd ayaa la bilaabay laynta geela oo loo adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo rasaas tallaabadan ayaa la qaaday kadib markii ay dadka ku dhaqan gobolkaasi ka cawdeen geela oo guryahooda ka dhamaysanaya biyaha waxaa la soo tabiyay in geel koox u socda uu waxyeeleeyay guryo iyo magaalooyin ku yaala deegaankaasi waxay ku wareegayaan wadooyinka iyagoo biyo raadinaya waxaan xitaa uga cabsi qabnaa carruurtayada ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka muddo 5 maalmood ah ayaa la wadi doonaa howlgalka lagu leynayo geela koonfurta Australia sidoo kale qaar ka mid ah fardaha ku dhaqan gobolkaasi ayaa la dili doonaa rag wajiyada u daboolan yihiin oo ka socda waaxda arrimaha deegaanka iyo biyaha ee Australia ayaa loo xilsaaray inay toogtaan geela iyo fardaha kumanaanka ay ku dhaqan deegaankaasi gobolka geela lagu baabiinayo ayaa loo soo gaabiyaa ABY waxaana gobolkaasi degan dad asal ahaan u dhashay dalka Australia dadka Soomaalida geelu waxa agtooda ka yahay hantida ugu qaalisan adduunka waxayna dhaqan ahaan u leeyihiin dhaqashadiisa taariikh ayay Soomaalidu u leeyihiin xanaaneynta geela waana isugu faanaan halka qaarkood ay isku sooraan sidoo kale in ka badan 100 guri ayaa ku burburay dab xoog leh oo ka kacay keymaha gobolka Victoria dalka Australia dhinaca kalena waxaa ku naf waayay xayawaan badan oo keymahaasi ku dhex noolaa waanigu Maxamed Khadar geeska Africa TV magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Iran waxa la xaqiijiyay in ay soo riday diyaaradii ay lahayd Ukraine oo ay saarnaayeen 176 qofood warkaas oo faahfaahsan waxa noo haya wariyaheena Hashim Aadan warbaahinta Mareykanka ayaa tabisay in dawladda Iran ay si kama ah u soo riday diyaaradii rakaabka ahayd ee laga lahaa Ukraine taasoo Arbacadii ku dhacday meel u dhow magaalada Tehran isla markaasna ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee la socotay saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda Ukrainian International Airlines oo nooceedu ahaa Pion 737 xariijin 800 uu ku dhacay gantaal sida ay tabisay warbaahinta CBS dowladda Ukraine ayaa goorsii horeysay sheegtay inay baaritaan ku hayso sababtii ay u dhacday diyaaradda iyo in uu soo riday gantaal hase ahaatee Iran ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada in gantaal uu ku dhacay diyaaraddaasi warwarka diyaaradda rakaabka ayaa yimid saacado yar kadib markii ay Iran furisay weerar gantaalo loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku yaala Ciraaq warbaahinta CBS oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in qalabka satellite-ka ee hawada uu qabtay cadeymo muujinaya in diyaaradda uu gantaal ku dhacay dhinaca kale barnaamijka Newsweek
ayaa soo xigtay saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Ciraaq oo sheegaya in diyaaradda Ukraine uu haleelay gantaal lagu farsameeyay dalka Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay inuu shaki ka qabay sababta ay diyaaraddaas u soo dhacday, wuxuuna yiri qof ayaa laga yaabaa inuu qalad sameeyay xilli ay sii xoogeysteen xiisadaha u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka oo ka dhashay dilkii Jenaraal Qaasim Suleymani loogu geystay dalka Ciraaq 3 bishan January. Iiraan waxay sheegtay inaysan Mareykanka ku wareejin doonin sanduuqa madow ee duuba xogta diyaaradda. Mas'uuliyiinta xukuumadda Tehran ayaa sheegay in xitaa shirkadda Beyond ee diyaaraddaasi farsamaysay aysan sanduuqa ku wareejin doonin. Iiraan oo diiday in ay wareejiso sanduuqii madowaa oo keydinayay xogta diyaaraddii burburtay. Qodobkaasna waxaa noo faahfaahinaya waryaheena Hashim Aadan. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay in sanduuqa madow ee keediya xogta duulimaadka aysan ku wareejin doonin shirkadda diyaaradda samaysay iyo dowladda Mareykanka. Diyaaraddan oo ay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa ee ay tiradoodu gaarayso 176 qof ayaa nooceedu ahaa Beyond 737 xariijin 800 waxayna ku dhacday duleedka magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan daqiiqado kadib markii ay duushay. Marka la eego shuruucda caalamka u degsan ee dhanka duulimaadyada ah, Iiraan waxay xaq u leedahay inay hogaamiso baaritaanada ku aadan waxa sababay shilka diyaaradda. Hase yeeshee, shirkadda samaysay diyaaradda ayaa farsamo ahaan aanan looga maarmin inay ku lug yeelato baaritaanka maadaama dalal kooban oo caalamka ay aqoon u leeyihiin inay baaritaan sameeyaan. Diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ukraine ayaa dhacday xilli ay taagneed xiisada u dhexeysa dalalka Iiraan iyo Mareykanka, waxayna duushay saacado kadib markii Iiraan ay gantaalo ku weerartay 2 saldhig oo uu Mareykanku ku leeyahay gudaha dalka Ciraaq. Ilaa iyo hadda lama garanayo waxa sababay shilka diyaaradda iyo in ay la xiriirto xiisada u dhexeysa labada wadan. Sida caadiga ah, guddiga dowladda Mareykanka u qaabilsan badqabka gaadiidka ayaa inta badan ku lug yeesha baaritaanada caalamiga ah ee lagu sameeyo shilalka ku yimaada diyaaradaha ay samayso shirkadda Beyond, balse guddigaas waa in uu la jaanqaadaa shuruucda dalalka ku lugta leh arrintan, fasaxna ay ka haystaan dowladda dalkaas. War qoraal ah oo lagu daawacay wakaaladda wararka ee taabacsan dowladda Iiraan ee Mehr ayaa lagu sheegay in madaxa hay'adda duulimaadyada rayidka ee Iiraan Ali Abedzadeh uu sheegay in Iiraan aanay sanduuqa madow ku wareejin doonin shirkadda samaysay diyaaradda ee Beyond iyo dowladda Mareykanka. Shirkan waxaa baari doona hay'adda duulimaadyada ee Iiraan, balse sidoo kale dowladda Ukraine kaalin ayay ku yeelan kartaa, ayuu yiri. Wuxuu intaa raaciyay in ilaa iyo hadda aysan kala caddeyn dalka baaritaanka ku samayn doona waxa sababay shilka diyaaradda iyo shilkana in uusan la xiriirin fal argagixiso. Shirkadda Beyond ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato baaritaanka. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in dalkiisa uu rajeynayo inuu kaalin muhiim ah ku yeesho baaritaanada ku aadan waxa sababay shilka. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa soo wareysay in shilka diyaaradda ay sabab u ahayd cilad farsamo iyagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan hay'adda duulimaadyada ee dalkaasi. Hase yeeshee, madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ka digay in la faafiyo wax aan la hubin ilaa iyo inta laga soo saarayo warbixin rasmi ah ee baaritaanka. Dadkii saarna diyaaradda waxay kala ahaayeen 82 qof oo u dhashay Iiraan, 63 u dhalatay Canada, 11 Ukraine ah oo ay ka mid yihiin 9 shaqaale ah, 10 u dhalatay dalka Sweden, 4 Afghanistan ah, 3 Britain iyo 3 Jarmal ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay in dadkii ku dhintay diyaaradda 15 ka mid ah ay ahaayeen caruur. Intaas waxaa nooga dhan war wixii naga soo gaaray gudaha iyo dibadda. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Barkad Maxamed Cumar Suldaanka. Halka aad nagala socotaana waa Geeska Africa TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Intaynu ku kulmayna kulankan iyo kulanti xiga waxaan idinkaga tagayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.